السلام عليكم أصحابتا مدحوينه دونالد ترامب شرعيgiisii ugu magac daray the big beautiful bill aqalka wakiilada ama aqalka hoose ee Mareykanku waa ay meel mariyeen sharcigan waxaan ognahay talaadadii in aqalka sanadka ay meel mariyeen waliba cod yar oo 51 ay ku meel mariyeen aqlabiyada aqalka sanadka waxaan ognahay Republicanka ayaa leh 53 leh dimuqraadiyiintana 47 marka saddex Republicana ayaa 47 dimuqraadiga ah sharcigaas diiditaankooda ku raacay marka 50 ayay noqdeen sharcigu ma meel mari karo marka madaxweyne ku xigeenka ayaa wuxuu yahay gudoomiyaha aqalka sanadka isaga ayaa codka 51 dhiibtay sidaas ayuuna sharciga ku meel maray aqalka wakiilada ayaa loo soo gudbiyay maadaama sanadku ay wax ka bedeleen aqalka wakiilada marka ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay ayay ka doodayeen qaar ka mid ah xubnaha Republicanka ayaa ka soo horjeeday madaxweynaha ayaa shalay aqalka cad ugu yeeray waa uu la kulmay ilaa iyo xalana waxa la leeyahay qadka telefoonka ayuu kula hadlayay marka ugu dambeyntii xitaa dimuqraadiyiintu waxay isku dayeen in sharcigan ay dib u dhigaan oo waqtiga Trump uu degsaday oo ah maalinta beri oo Jimcaha 14 bisha in la hor keeno maalinta xurriyadda Mareykanka ku beegan inuu saxiixo inay dib u dhigaan gudoomiyaha aqlabiyada ee aqalka sanadka Hakeem Jeffries ayaa 8 saacadood iyo 45 daqiiqo ka hor hadlayay aqalka wakiilada rikoor cusub ayuuna dhigay waxa uu bilaabay ku dhawaad 12 saac subaxnimo inuu hadlo ilaa iyo 8 saac oo maalmeed maanta duhurnimada ayuu hadalkiisa soo gaaray rikoor horey ugu yeelay gudoomiyihii hore ee aqlabiyada yar ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo sanadkii 2021 ka dhigay oo ahaa 8 saacadood 32 daqiiqo ayuu jabiyay 8 saacadood iyo 45 daqiiqo ayuu hadlay intaas wuxuu rabay in sharciga ansixintiisa dib loo dhigo laakiin markii hadalkiisii uu dhameeyay afayeenka aqalka wakiilada isla markiiba cod ayuu galiyay waxaana uu codeeyay 218 xubnood 217 ayuu u baahnaa maadaama aqlabiyada aqalka wakiilada ay isku dhowdahay oo 220 ay haystaan xisbiga in Republicanka 215 ay dimuqraadiyiinta haystaan saddex cod ka badan hadii ay lumiyaan ilaa afar cod hadii lumiyaan sharcigu waa guul dareysan laha marka laba xubnood oo Republican ayaa 212 dimuqraadiga waxay ku raaceen sharcigaas inay diidaan 214 way diideen 218 way u codeeyeen sidaas ayaa sharcigi ansax ku noqday labada xubnood oo Republicanka ay diidayna waa Thomas Massie oo Kentucky laga soo doorto iyo Brian Fitzpatrick oo laga soo doorto Pennsylvania ayaa dimuqraadiyiinta ku raacay marka madaxweyne Trump arintaas waa uu soo dhaweeyay guul wadanka uu soo hoyatay ayuu ku tilmaamay xubnaha Republicankana waa u mahad celiyay isla markaana waxa la filayaa sharcigaasi sidii u qorsheysneed boo qorshaha u dejistay the big beautiful bill in maalinta beriya uu saxiixo sharcigan waxyaabo fara badan ayaa ku jira in dad fara badan kaarkooda caafimaadka iyo caymiska ay wayn doonaan dadka full stamp-ka qaatay shaqo lagu xiri doono iyo sidoo kale deynta dowladda Mareykanka lacag fara badan in 10 sano soo socota ku kordhinayo laakiin sharciga